qisadii nabiyullaahi sulaymaan calayhi salaam oo ay ku weheliyaan gabadh boqorad ah, quraanjo boqorad ah, hudhud la yaaban dad bilaa iimaan ah, iyo nebi ilaahay isagoo wax kasta siiyey, kuna yidhi kaama xisaabinaya ee xoolaha ee waxa aad doonto ku samee, oo haddana aad yaabaysid sida uu wanaagga ugu samaynayo. nebi sulaymaan calayhi salaam sidaynu ogsoonnahay waxaa dhalay oo aabba u ah nebi daa'uud calayhi salaam, oo ahaa nebi cibaado badan oo ay la jiibin jireen tasbiixdiisa buuruhu, wuxuuna ilaahay u fududeeyey birta xadiidka ah. buurahow la celceliya, macnaha jiibiya tasbiixda, shimbirahowna la celceliya tasbiixda, waxaanan u jilicinnay birta. wuxuu ahaa nebi ilaahay siiyey cod aad u qurux badan oo marka uu akhrinayo qur'aanka ay shimbiruhu ay istaagi jireen, sida ku sugan axaadiista saxiixa ah. waxa uu maqlay rasuulku nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee habeen abi muusa al-ashcariy oo akhrinaya qur'aan, markaasuu istaagay oo uu dhageystay, markaasuu ku yidhi rasuulka nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee waxaa lagu siiyey mizmaar ka mid ah mizmaartii daa'uud. nebi sulaymaan calayhi salaam waxa uu ka dhaxlay cilmiga aabbihii nebi daa'uud calayhi salaam, isagoo ay u sii dheer yihiin fahamka luuqadda shimbiraha, kuna mahadnaqaya galladda iyo nimcada ilaahay siiyey. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. wuu dhaxlay sulaymaan daa'uud, wuxuuna yidhi dadow waxaana la baray codka shimbiraha, waxaana nala siiyey wax kasta oo xukun ah, kaasina waa fadli cad. maalin maalmaha ka mid ah waxa uu soo ururiyey nebi sulaymaan calayhi salaam askartiisii oo isugu jirta jinni iyo insiba, waayo ilaahay ayaa u sakhiray. bal intaynaanse gelin isu soo saaritaankii uu sameeyey sulaymaan, aan dib u jalleecno wuxuu weyddiistay ilaahay iyo sida uu uga aqbalay nebi sulaymaan. wuxuu yidhi, ilaahow ii dembi dhaaf, ina sii xukun aan ku habboonayn cid iga dambaysa, adaa bixin badana ahe. waxaanan u sakhirnay dabaysha iyadoo ku socota amarkiisa, iyadoo jilicsan meeshuu doono. shayaadiintana waan u sakhirnay, mid wax dhisid iyo mid wax dhumbasho badan. waa aayad ah in loo fiirsado. waxa uu ku bilaabay dembi dhaaf intaanu weyddiisan xaajadiisii. waxaa la inooga baahan yahay in ilaahay aanu weyddiisanno dembi dhaaf fara badan, si marka arrin inagu cidhiiri noqoto uu inooga ajiibo. nebiguna nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee waxa uu yidhi, qofka badiya istikfaarta, dembi dhaaf dalbidda, ilaahay waxa uu uga dhigaa shay walba fudayd, meel aanu ka filaynna waa uu ka arsaaqaa. waa waxyaabahaynu iska ilownay ee aynu xusuusanno un markaan dhib la kulanno. waa inaynu mar kasta xusuusannaa digriga iyo xusidda ilaahay. nebi sulaymaan markuu dembi dhaafkii weyddiistay waxa uu yidhi, ilaahow waxaad isiisaa mulki aan cidina iga daba dhaxlin. waxaad tahay kan ku hibayshashada iska leh. waa ilaahay ka cidduu doono siiyo wiilal, cidduu doonana siiyo gabdho. hadduu doono iskugu dara wiilal iyo gabdho, hadduu doonana ka dhiga madhalays. ilaahay waa uu ka aqbalay addoonkiisii nebigiisii sulaymaan, wuxuuna u sakhiray dabaysha oo ku socota amarkiisa iyo shayaadiinta iyo wax walboo kale oo markaasi ku yidhi, waa kaase sidaad doonto ugu tasarruf, kuma weyddiinaynae. addoonkuna waa in uu ilaahay ku xidhnaado. waxyaabaha inaga daboola in nalaga aqbalo ducooyinkana waxaa ka mid ah risiqa xaaraanta ah ee aanay dadka intooda badani aysan markaa u kala aabba yeelin, marka laga reebo in ilaahooda garatay mooye. sidaa daraaddeed ducooyinkan ducaysanayno markay arrimuhu inoogu soo ururaan ee aynay jirin cid inaga furdaamin karta ilaahay mooye, waa in aan dembi dhaaf weyddiisannaa. bal ka warran in aad u tagto qof ammaah badan kugu lahaa, oo aad haddana ku tidhaahdo xoolo kale i ammaahi. ma ku ammaahinayaa? waxa uu ku odhanayaa, war soo bixi horta ammaahdii hore.
markaa dembiyadeenna aan ilaahay weydiisanno inuu inaga dhaafo oo aan yeelanno wardi maalinla ah ugu yaraan 100 goor aan ilaahay dembi dhaaf weydiisanno. nebi muxamed nabadgelyo naxariiso korkiisa ha ahaatee waxa uu ahaa kii maalintii in ka badan 70 jeer ilaahay weydiisan jiray dembi dhaaf, waana kii ugu khayr ka badnaa. wuu soo ururiyey isagoo isugu keenay meel bannaan ah. intiisi ay socdeen ayaa waxa ay ku soo beegmeen boqortooyo quraanjo ah oo nidaamkeeda iyo hanaankeeda leh. haddaynu si fiican ugu fiirsanno boqortooyada waxa aynu ka heli iyadoo ay isjecel yihiin iyo sida boqoradda ay ugu digaysa raaciyadeeda ee aanay ahayn mid nafteeda un ilaalinaysa. way aragtay colkii nebi sulaymaan calayhi salaam, markaasay u digtay ciidankeedii iyadoo ku leh gala guryihiinna oo iska jira sulaymaan iyo ciidankiisu yaanay idin burburine. waa ay sii waday boqoradda quraanjadu hadalkeeda si ay u qanciso, ilayn markay maqlaan yaanay idin burburine waxay isweydiinayaan maxaan ka samaynay. laakiinse si xigmad leh ayay u tiri isagoon idin dareemaynin. waxaa maqlay hadalkaasi nebi sulaymaan calayhi salaam oo dhoola caddeeyey, markaasuu ku mahadnaqay ilaahay. ilaaha u sahlay inuu maqashiiyo codka quraanjada u digaysa ciidankeeda ay mas-uulka ay ka tahay. markaasuu yidhi, ilaahow iwaafaji in aan ku mahdiyo nimcadaad igu galladay aniga iyo waalidkay, iyo in aan sameeyo wanaag aad raalli ka tahay, iguna geli naxariistaada addoommadaada wanaagsan dhexdooda. ilaahow iwaafaji ruuxdayda iyo jidhkaygaba in aan kuugu mahadnaqo nimcadaada iyo galladaada aad ku galladaysatay aniga iyo waalidkay. waa duco looga baahan yahay in aan waalidiinteenna aanu ugu ducayno, waayo xaq weyn bay inagu leeyihiin, oo waa ay ina soo koriyeen, oo waa ay ina soo koolkooliyeen, markaasay kulayl iyo qabow inaga ilaaliyeen, habeenoo dhan inoo soo jeedeen. dadkuse ma dareensana in waalidku markay dhintaan loo samafalo oo loo duceeyo. waxaabad mooddaa inay haddii uu lacag leeyahay u baryayaan inuu dhinto si ay dhaxalka ay uga qaataan. miskiin, ma lacag ayaad ku beddelanaysaa waalidka? laakiinse wiilka ama gabadha baariga ah waa kuwa raaca dariiqa wanaagsan ee uu ilaahay uu ku tilmaamay suuratul axqaaf, iyagoo odhanaya markay waaweynaadaan ee ay ku dhowaadaan 40-ka, waa marka uu qofka caqli iyo cudud jidh ahaaneedba uu dhammaystirmo. ilaahow iwaafaji in aan ku mahdiyo nimcadaad igu galladaysatay aniga iyo waalidkay, iguna toosi in aan camal fiican oo aad raalli ka tahay aan sameeyo. iina wanaaji faracayga durriyaddayda, waana ku toobad keenaye waxaanan ka mid ahay muslimiinta. waa kuwa hadalka owlaadda wanaagsan ee caafimaad qaba ruux iyo jidhba ee uu ilaahay siiyey qiyam ka wacan ee wanaagsan, ku shikriyey mahadnaqayana nimcada ilaahay iyo inuu ilaahay waafajiyo camal ka wanaagsan ee uu ka raallida yahay. hawraar iyo hadal iyo ficilba ku ducaysanaya inuu ilaahay durriyadda u wanaajiyo, waayo qofka waalidkiisa ku noqda caaq isna way u taallaa. waa tii horeba loo yidhi 3 laguma hodmo: habaar waalid, hansi gabdheed, hadimo xoolaad. markay la yimaadaan dadka wanaagsani ee u baari ahaa waalidkoodii arrimahaasi, ayuu ilaahay odhanayaa kuwaasi waa kuwaannu ka aqbalayno camalkoodii fiicnaa, kana dhaafayno kooxdii xumaa, waxayna noqon ahlu janno. ilaahayna waxa uu u yaboohay yaboh run ah. ogaada dhallinyaroy, waalidka qiimihiisa iyo qaayihiisa, markaasaa adduun iyo aakhiraba liibaanayeen. aan isku dayno in aan dib u xusuusanno maalmihii aannu tabarta darnayn iyo siday inoola soo daalaadhaceen, oo hinteenna sida ay ugu baraarugayeen, iyo waxyaabo kale oo aynan ku soo koobi karin halkan. wuu sii watay nebi sulaymaan calayhi salaam hadalkiisii, markaasuu yidhi, ilaahow igu kaalmee inaan camal fiican oo aad ka raalli tahay aan sameeyo, iguna geli raxmaddaada in aan noqdo addoommahaaga wanaagsan. nebi sulaymaan calayhi salaam wuxuu ilaahay weydiisanayaa inuu ku geliyo jannada raxmaddiisa, maaha inuu ku geliyo camalkiisa. nebiguna nabadgelye naxariiso korkiisa ha ahaatee
waxa uu ku yidhi asxaabta qofna kuma gelaya camalkiisa jannada markaasay yidhaahdeen xataa adiga miyaa rasuulkii ilaahayow markaasuu yidhi xitaa aniga ilaahay unbaa igu hareeyey raxmaddiise waad ku mahadsantihiin sida wanaagsan ee mar walba aad noola socotaan bulqaas media ayaad nagala socotaan fadlan haddii aad ku cusub tahay beejka bulqaas media ha ilaawin inaad like iyo follow aadna soo tiraahdaan haddiise aad tihiin macmiil soo noqday ha ilaawina in aad muuqaalkan aad sheergaraysaan oo asxaabtiinna kale aad la wadaagtaan si iyagana asxaabtooda kale ay ula wadaagaan halkaasina ay ajir iyo xasanaad iyo wax wanaagsan uga faa'iidaan wixii tale iyo tusaale ah waxaad noogu soo qori kartaan dhinaca kommentiska aad ayaad u mahadsan tihiin rabbiga ha idinla jiro ramadaan kariim ayaan idin leeyahay assalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته